waxaan halkan ku bilaabaynaa koorsadii cryptocurrency-ga oo Omaya Express ay ugu talagashay dadka ku xiran inay kaga faa'iideystaan ama ay ogaadaan waxa uu yahay cryptocurrency. hadduu la yiraahdo koorsadan waxaan kaga hadli doonaa waa maxay cryptocurrency, sidee u shaqeysaa, sidee ku imaatay, sidoo kale maxaa la dhahaa waxyaabahan coins ka jiro ama cryptocurrencies ka jiro inaan mid u soo qaadano intii aan ka gaarno, sidoo kale sida looga trade gareeyo, sida lacag looga sameeyo, sida loo investment gareysto, sida wallets-ka loo furto iyo wax walba ku saabsan cryptocurrency-ga kaga hadli doonaa hadduu la yiraahdo koorsadan. koorsadan waxaan soo jeedin doonaa anigoo Cabdulqaadir Yuusuf saasaan ku sii guda galaynaa hadduu la yiraahdo koorsada. cryptocurrency runtii aad uu hadda wadankeena Soomaaliya ugu soo kordhay, dadkana aad ay hadda uga warqabaan. taasa markan ugu kaliftay in aan maxaa la dhahaa koorsadan aan ka diyaarino. cryptocurrency inta aan ka hadlin horta waxaa mudan in laga hadlo horta waa maxay lacag. qofka waxaa mudan maadaama wax lacag ku saabsan ay tahay horta lacagta in ka soo hadalno oo lacag waa maxay inaan dhahno. haddii soo koobno lacagta sideedaba money hadaa maqashid ama lacag hadaa maqashid, lacagta waa shay qiimo leh, waa shay dadka isku garteen inay qiimo u yeelaan. marka waxay ku xiran tahay iyadana wax qiimo leh. hadaa maqashid lacag ama shay qof inaad wax kaga bedelatid darabtid waa inaad shay qiimo leh kaga bedelatid. shaygana waxa qiimo u yeelaya ama aan qiimo siinayana waxay tahay in la aamino shaygaas inuu qiimo leeyahay. labadeena hadaa isku afgarano shay hadaa noo dhaxeeyo aan dhahno shaygan agteena qiimo ka leeyahay, shaygaas hadhow wax waa ku bedelan karnaa. that's marka money-ga lagu sheegay ama lacagta lagu sheegay waa taas. dadkii hore marka waxyaabo badan u ahaa value sida maxaa la dhahaa oil-ka, gold-ga iyo waxyaabahaas haba ugu caansanaado gold-ga. marka dadka way aamineen oo trusty ku hayeen inay gold-ga ay aaminaan. gold-ga wuxuu ahaa maxaa la dhahaa value, shay qiimo leh uu ahaa. marka wuxuu ahaa shay u dhaxeeya markii wax la rabo in la kala bedesho. waati maxaa la dhahaa arintaas laga soo gudbay oo ay imaatay in oo maxaa la dhahaa gold-gii la dhaho qofka inuusan qaadan karin oo meel kasta uusan u qaadan karin, taasna ay keentay hadduu qaato xitaa uusan jijibin karin. tusaalaan shay raba inuu gold ku bedesho, shaygaasna uu qiimaha markaas gold-gaan uu wato qiimihiisa uusan wada ahayn qayb kamid ah gold-ga uu yahay. taas marka waxay keentay in la sameeyo wax loo yaqaano currencies, in la sameeyo ama lacagtan oo daabacan warqadahaasna qofka uu qaato. warqadaasna waxay ku fiicnaayeen in la kala jarjari karo oo qofka uu maxaa la dhahaa $1 $2 ama hadba qiimaha gold-ga uu haysto markaas uu ka dhigan karo warqad iyadoo bankiis markaas la isticmaalayo. bankiiskaas warqadahaas marka oo bedelay gold-ga iyo ka naftirkooda ugu dambeyn waatii ay kusoo gabagaboobeen in ay noqdeen wax loo yaqaano fiat currencies ama gold-gii in dawladihii ay dhaheen dawladii shaygan gold-ga ah anaga ma rabno ma noogu xirnaanayso lacagtana anaga maadaama aan dawladii nahay anaga waxaan ku leenahay warqadan warqad ahaan inay $1 ku qoran tahay $100 ay ku qoran tahay ee qiimo ku leedahay. marka inaan ugu kalsoonaataa waxaa imaaday marka awal trust-gi jiray isbedelay. macna awal trust-gi jiray wuxuu ahaa in oo maxaa la dhahaa la trust gareynay gold-ga iyo sidoo kale waxyaabaha bulshada qiimaha ku leh. laakiin hadda way isbedeshay maadaama dawladda ay soo dhex gashay. waxaa trust-ga uu imaaday in la dhaho meeshii ay ka ahayd marka hore meeshii ay ka ahayd wax loo yaqaano gold-ga ama shay in la trust gareeyo, waxaa imaatay in dawladda ay ku dhahday shaygan lacagtan qiimahan aniga maxaa la dhahaa waxay leedahay qiime leedahay. tusaalaan dollarka oo kale Mareykanka inuu ku dhaho lacagtan dollarka ama soo baxsan oo banaanka taalo oo daabacan value ay leedahay, qiime leedahay. yaa ku sheegay dawladda ku sheegtay the government orders to dawladda amartay macna shaygan qiimo u leeyahay la yiri. arintaas marka iyada arin dheer ay ahayd inaan ka hadalno marabno oo maxaa la dhahaa sida gold standard looga soo guuray oo loo imaaday warqadahan inaysan ku xirnaaninba wax gold ah maadaama awal lacagta ay gold ku xirneed. oo waxaa sameyn kartaa awal $1 biilka ama $10 biilka inta qaadatid waxaa la tagi kartay bangiga, waxaana ku soo bedelan kartay ama soo qaadan kartay inta gold ee kugu dhigmato ee ku taalo bangiga. laakiin waxaas way ka soo gudbeen. waxaa la imaaday markii si la isku soo fiat currencies kaas la imaaday ama fiat money. fiat money-ga marka waxay keentay in changing the trust model uu dhaco ama trust-ga qaabka u dhacay ama sida la isku maxaa la dhahaa la isku aaminayay isbedeshay oo isku bedeshay from trusting something shay in la trust gareeyo oo tusaalaan gold-ga oo kale in la aamino oo loo yaqaan shay value leh waxay isku bedeshay in maxaa la dhahaa trusting someone ay imaato oo dawladii la aamino.
oo la dhaho maadaama de shaygan uu qiimo leeyahay yaa dhahay uu qiimo leeyahay dawladda yaa dhahday soo marka governmentiga waa inaan aaminaa qaabkaasay marka changing the trust model ee u imaatay soo marka fiat currencies-kan ama fiat money-ga imaaday wuxuu lahaa drawbacks uu lahaa waa caqabada jirta waxay ahayd in oo ay la imaatay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay in ay fiat money-ga ay tahay centralized oo macnaheedu ay tahay fiat money kasto waxay ka soo jeedaa ama maamulo ama ka imaata dawladda ama bangiga markaas oo central bangiga ah waa shay centralized ah sidoo kale drawback labaad ay lahayd waxay ahayd inuu tahay unlimited oo dawladda lacagta ay hayso limit ma lahan ma la dhihi karo maanta dunida waxaa yaalo intaasoo kun ama intaasoo milyan oo dollar ah yaalo ma sheegi karno because of waa la daabici karaa dawladda ma ogid inay warqad badan daabacayso waxaa laga yaabaa way dhacdaaba sanado badan inay dhaceen lacaga in loo baahday dib loo soo daabacay lacagahaasna markasta waa la daabici karaa the problem waxaa waaye marka unlimited waa so marka waxaa dhihi karnaa marka maadaama dee fiat money-ga drawbackskeeda ay unlimitedkii waxyaabahaas ahayd sidoo kalena maadaama hadda lacagteena naftirkeeda hadda aan isticmaalno ay tahay digital money-ga maadaama ay tahay maxay marka uga duwan tahay ama tusaale ahaan waxaa dhihi karnaa anaga waxaa isticmaalnaa hadda maalmahan ama waqtigaana hadda joogno waxaa isticmaalnaa wax loo yaqaano credit cards wire transfers paypal iyo form of digital money oo kala duwan oo badanaa isticmaalnaa haddaba waxaa muhiima marka ma xalisay arrintaas caqabada jirta may xalinin maxaa yeelay digital money-ga hadda aan haysano waxaa dhici karta tusaale ahaan shaygii lacagti fiyaadka aheeda waxaa loo bedelay digital loo bedelay as digital in loo isticmaalo mar walba laga fikiri jiray macnaha in lacagta digital loo bedelo laakiin marka tusaale ahaan hadda dhahno si ay u shaqeysaa tusaale ahaan digital money-ga hadda haysan digital money-ga hadda haysan waxay u shaqeysaa oo qofaa wuxuu dhihi karaa lacala digital money-ga waxa sameyn karaa maadaama lacagtan digital tahay kasoo qaadba in $1 haysto uu yahay hal file macnaha wuxuu kaaga tarjumaa dollar inuu kaaga tarjumaa waxa sameyn karaa Soomaha maadaama shaygan digital tahay inaan halkaas file koobiyeeyo million ama 100,000 inta raba ka dhigo kadib lacagtaas asaas ku isticmaalo oo koobigaas ay isticmaal halkii file inaa koobi gareeyo kadib aan saas u isticmaalo caqabadaas marka waxa la yiraahdaa ama dhibaatadaas ama problemkaas waxa loo yaqaanaa double spend problem oo ah maxaa la lahaa in lacagtii dib loo isticmaali karo oo maadaama shaygan digital laga dhigay in lacagtii aad isticmaashay oo aad bixisay tusaale ahaan inaad laba mobile hal lacag ku gadatay tusaale $100 taleefanka kugu jirto in $100 taleefanka ku gadatay isla asigii aad dirtid hadana aad taleefankaas ku gadatay ama lacagtaadiba aad badsatid oo aad koobiyeysid double spend problem ay jira problemkaas marka solution loo helay maadaama digitalka la joogo solutionka loo helaa waxay ahayd decentralized ka hadda ka hadlayna ama centralized solutionka ka hadlayna oo aha in lacagtii laga dhigo centralized oo ah xukuumad ama maxaa la dhahaa bangi central ah inuu lacagtan uu maxaa la dhahaa uu asiga maamulo isaga uu soo saaro isaga uu og yahay ama uu sheegayo lacagta meeshii laga diray qofkii diray uu qoraa ledger jiro oo la isticmaalo oo bangiyada isticmaalaan ledgerkaas computerka wuxuu ku qori doonaa lacag kasto meel kasta ku taala ama digital ahaan ha u taala ama caadi ahaan ha u taala ama bangiga ku taala qof kasta bangi uu leeyahay bangi qof laha lacag macnaha maamuli karo wadi karo soo marka bangigaas waxa kaaga furan maxaa la ledgerkaas waxa lagu keydiyaa dhammaan transactionska lacagtaas meeshaas ay ka baxday meeshaas ay gashay qofkaas ay ka tagtay lacagtaas qofkaas kale u gudubtay soo marka waa centralized solutionkii loo hayaa marka wuxuu ahaa inay noqoto centralized taas marka waxay keenaysaa in anaga dhan aad trust gareeno ama aan aamino bangiga sidoo kale bangigana waa asna aamino waxa loo yaqaan computerka markaas uu ledgerka ku kaydinayo oo haday ledgerkaas dhumo lacag badan aad dhumayso soo marka computerkii uu aamina bangiga anagana waxa aaminayna waxa loo yaqaan bangiga aaminayna soo marka wax loo yaqaano arinta saasade u jirta marka oo bangiga anaga aa wada aamino bangigana computerkiisa uu aamino lacagtan halkaas ay noogu wada keedsanaato bangigan uu lacagtaas maamuli karo isaga oo lacagtana ay unlimited tahay sidoo kalena ay tahay wax loo yaqaan centralized oo isaga maamulay bangiga ama governmentiga caqabado waaweyn ay keeni kartaa because of lacagtaada sideedaba lacag qof haduu maamulo ama qof hadii uu awood oo money supply-ga uu helo qofkaas awoodii ugu badneed uu helay dunida taas macnaheedu waxay tahay wax walba sameyn kara waxaana keeni kartaa marka arintaas corruption badan maxay la awood qofkii yeesho wuxuu sameyn karaa corruption badan uu sameyn karaa ama qaladaad badan uu sameyn karaa marka centralized money issues ka jiro ama caqabadaha ka jira waxay tahay in loo yaqaan wax corruption uu dhacayo mismanagement ay dhacdo sidoo kale control buuxa adiga lagu leeyahay dawladda markay ay maxaa la lahaa corruption ka kala ka hadalna dhowr mar waxa dhacday in maxaa la lahaa
wax loo yaqaan dawlado badan ay lacag badan daabaceen iyadoo markaas dhalisay xitaa in lacagtii ay qiimo beesho oo lacag badan maanta la soo saaro lacagtan tusaalaan dollarka kala dollar badan hadda la daabaco lacagta dollarka hadaay wixii ku goyn jirtay ama waqtigii hore wixii ku goyn jirtay kuma goynayso maadaama qiimihiisa uu dhacay sidoo kale mismanagement inay dhacaan laga yaabaa oo bangiga waxa laga yaabaa lacagahaas ama dawladda waxa laga yaabaa bangiyo ku imaan rabeen inay lacag beelaan ama bankrupt uu ku dhaco in ay ku daaweeyaan oo ay ka dhigaan in ay lacag haystaan oo lacag badan loo soo daabaco ama dawladda lagu badbaadiyo ama bangiyo lagu badbaadiyo lacagtaas maadaama waxaan ka wadnaa centralized ay tahay cidaas dawlad ha noqoto ama bangi ha noqdo lacagtaasi si qaldan ay u isticmaali karaan wayna dhacdaba sidoo kale waxa dhici karta in oo bangiyada naftirkooda bangiyada dhexdeeda corruption uu ka dhaco qof meesha ka shaqeynayaba sida hore u dhacday 1.4 million lacag gaaraysa amal hadda ka hor 1.4 million accounts qof ka shaqeynaya bangi uu sameeyay oo fake accounts isagoo markaas ujeedooyin kale ay lahaa soo marka waxa keenay dhibaatadaas waa centralized inuu yahay sidoo kale full control ay dawladaha u yeelanayaan hadii ay lacagtaada hayaan bangigaaga hadda la hayo jeebkaaga hadda la hayo lacagtaada la maamuli karo 100 qof waxa ku dhacday 100 qof maalin waxa ku dhacday akoonadooda in la baloogo 100 qof waxa ku dhacday akoonadooda in la bangareeyo dad waxa ku dhacday akoonadooda in isticmaal waayaan issues badan ay jiri karo oo qofka markaas centralized money-ga ay keeni karto dhibaatooyin fara badan haddaba marka dadka sidaas ay ku jireen dhibaatadaas ay ku jireen oo arintaas taagneed centralized in lacagti noqoto oo aan maxaa la wax xal aan la helin ilaa 2009 saasa lagu jiray macna soo marka waxa la raadinaya maxay ahayd in la helo system maxaa la dhahaa ka madax banaan laba mid noqonaysa ama inuu ka madax banaado dawlad iyo dad uu ku xirnaanin sidoo kalena ka amaan helayo wax loo yaqaan double spend money-ga oo ah in maxaa la qof walba uusan lacagta isaga iska sameeysan karin oo uusan iska koobiyeysan karin ama laba mar lacag meel uusan ku bixin karin 2008 markay ahayd nin loo yaqaano ama group waxay noqdaan bal ma yaqaan ilaa hadda oo loo yaqaan Satoshi Nakamoto wuxuu soo daabacay warqad cadaan ah ama research uu soo daabacay research-gaas uu ku soo suggestion uu ku sameeyay suggested creating system wuxuu soo suggest gareeyay in la sameeyo system oo decentralized ah oo decentralized currency ah waliba taasoo loo yaqaan Bitcoin wuxuu yiri waxaan sameyn karnaa ama arabnaa inaan sameeyno system oo decentralized meesha kuwii hore centralized ay ka ahaayeen system decentralized kaasoo loo yaqaan Bitcoin oo currency noqon doonto wuxuu sheegtay in oo maxaa la lahaa digital money uu sameyn doono taasoo xalin doonto waxaan loo yaqaan double spend problem oo ah in lacagta dib loo isticmaalo xalin karto iyadoo aan loo baahanin wax loo yaqaan central authority ama maxaa la lahaa awood dhexe ama bangi ha noqoto ama dawlad ha noqoto iyadoo aan arintaas loo baahanin soo marka Bitcoin ay noqoto marka currency-gaas 2008 marka la soo bandhigay laakiin 2009 ka isticmaalkeeda la bilaabay Bitcoin marka haba soo kordhama xumee Bitcoin-ka lagu sheegayo wax kale ma ahan Bitcoin-ka waxa waaye waa ledger ama waxa loo yaqaan in lagu qoro warqad lagu qoraayo transactions-ki dhacay tusaale in la dhaho Abdi oo yarkan Abdi la dhaho iyo sidoo kale Xasan lacag yar baa in isku diraan waxa ku qoran marka ledger-kaas lagu sheegayo waa digital waxa ku qoran Abdi wuxuu u diray maxaa la intaas oo Bitcoin Xasan u diray intaas ku qoranba Bitcoin-ka lagu sheegayo dhan waa intaas soo marka Bitcoin-ka waa transparent marka koowaad oo ah transaction kasto dhaco waa la arki karaa waa hufan yahay qof walbaana la socon karo sidoo kalena waa decentralized oo macnaheedu ay tahay lacagtaas la diray ama meel kasta laga soo diray waxa xogtaas kaydinayo oo verify gareynayo macnaha waxa xaqiijinayo sidoo kale kaydinayo computer kala duwan oo dunida dacaladeeda yaalo taasoo ka dhigan hal qof uu ku xiran yahay ma jirto tusaale hadii bangiyada markii ay joogtay bangiga qof tusaalaan bangi ama payment systemska qofka kale markuu isticmaalayo bangiga qofka dukaan haduu wax ka gadanayo qofku wuxuu sameyn lahaa Soomaha dukaanka inuu tago lacagti markuu bixiyo dukaanka oo system ku dhiibo ama ha ku dhiibo EFC ha ku dhiibo ama bangi card ha ku dhiibo ama debit card wuxuu raba ha ku dhiibo waxay sameyn doontaa dukaanka wuxuu sameyn doonaa isla markaa wuxuu xogtii wuxuu u diri doonaa bangiga wuxuu soo hubin doonaa Cabdullaahi ama Xasan ama qofka meeshaas wax ka iibsanayo lacagtu sheeganayo inay ugu jirto horta bangiga hadii ugu jirto wuxuu dhigi doonaa bangiga way ugu jirtaa kadibna database-kiisa la bedeli doonaa waxa la dhigi doonaa meesha $5 ay ku jirto haduu $2 wax ku gatay $5 $2 laga jari doonaa bangiga kale ama akoonka waxa loogu gudbin doonaa loo yaqaano maxaa la dukaanka uu lahaa
taas markay dhacayso waxa waa centralized oo markasta waxa lagu xiran yahay halkaas qof hadhow isaga wax walba ka bedelan karo haduu lacagtaas daabacdo haduu lacagtaas dhaho ma baxsan kartiin mar walba isaga lagu xirnaana decentralized marka taas cagsigeeda waaye oo ah in shaygan hal wax aysan ku xirneen government aysan ku xirneen computer kala duwan oo dunida dacaladeeda ay ku xiran yihiin computeradaasna mid kastaba si gooniya uu transaction kastaba uu u fiirinayo oo u daalacanayo oo hubinayo transaction kaas dhacay عكسي markay noqoto marka bankiska iyo payment systemska marka isticmaalayno ama caadiga isticmaalna hadda oo digitalka ah iyaga naftirkooda waxay isticmaalaan ama waxa loo yaqaan non transparent waaye oo maanta qof ma jiro ogaan karo transactionada dhacayo ilaa aad tagtid bankiga u dhacdid oo ledgerkooda aad soo fiirisid ma ahane ama bankiga qof ka shaqeeya ama qof iskale ma ahane qof kale ma arki karo waxyaabaha meesha iska dhacayo waa data riskina waa sidoo kale waa centralized oo ah iyada uu kaliya ay ku xiran tahay dawladdaas oo kaliya ku xiran tahay qofka rabaan ay ka baan gareyn karaan qofka rabaan ay lacag u soo daabici karaan qofka rabaan ay lacag u sameyn karaan waa trust base ameeshas aan kula joogna iyaga hadaba midka bitcoin lacagtaas digitalka amal uu la mid yahay laakiin labadan qodob ugu duwan yahay oo transparent inuu yahay oo qof walba uu daalacan karo waxa loo yaqaano transactionadaas aan soo sheegnay oo ledgerka ku qoran waxa arki kartaa markii aad public transactionska aad fiirisid oo bitcoin kala sameeynayo ma arki doontid macnaa abdi ama maxamed wuxuu u diray lacag ama intaas u diray ma arki doontid laakiin waxa arki doontaa address hebel oo qof walba address uu leeyahay oo lacagtaas loogu soo hagaajin doono address hebel lacag laga soo diray address hebel kalena loo diray arki doontaa laakiin si direct uma arki doontid hebel lacagtaas soo diray hebel kale u soo diray baboskaas u soo diray ma jirto waxyaabahaas oo kale hadaba marka waxa isweydiin mudan bitcoin maxay u tahay big news ama wax lala yaabo oo dadka oo dhan ay soo dhaweeyeen oo maxaa la dhahaa maadaama aad bitcoin inta badan ay maqashin way asaas u tahay way loo weynayna way loo sheega way macno weyn ee ugu fadhisaa bitcoin waa big news because of arrimo soo socda darteed koow waxay tahay bitcoin waxa waaye waxay alternative u noqotay ama ay xal u noqotay dhibaatadii lagu qabay fiat money-ga lacagahan caadiga aan naqaano eurada USD-da iyo waxyaabahaas waxay u noqotay xal ay u noqotay macnaha xalkay u noqotay maxay ahayd maadaama iyaga markii hore isticmaalayeen oo mar walba loo baahnaa authority ama dawlad iyo bangi loo baahnaa mar kastaba oo dhexe oo iyaga barnaamijkaas maamula iyada meesha way ka bixisay oo waxay ka dhigtay dadweynaha waxay leeyihiin oo decentralized ah oo qof walbaba uu maxal lahaa uu ku yahay affected uu ku yahay lacagtaas uu xaqiijin karo transaction kasta oo dhaco uu arki karo uu ka dhex baxsan karo maxal lahaa wixii dhibaato oo dhacdana ma la wada arkayo mana suurtagelayso aniga Cabdullaahi ina systemkaas wada hakareeyo ma suurtagelayso in aan systemkaas wax ka qaldo haddii isku dayo in aan hal computer aan leeyahay inta dhex galo wax ka qaldo oo transactionkaas aan been ka sheego transactionada kale dhamaan waxay sameyn doonaan ama waxaan ula jeedaa blockchain-iska kale ama meelaha kale computerada kale oo dhan waxay sameyn doonaan in ay barnaamijkaas ay qabtaan maadaama maxaa la lahaa ay suurtagelaynin wax oo centralized aysan ahayn decentralized ay tahay hadhow marka waxaa la rabaa inay dhammaan blockchain-iska transactionada ku jiro inay is yeeshaan computeradaas marka dunida dacaladeeda yaalo oo barnaamijkan xaqiijinaya waxaa loo yaqaanaa blockchain ama maxaa la lahaa chain of blocks waa iyadana videoga ku xigo ama cashirka ku xigo noqon doona qodobka labaad ee bitcoin-ka ee u tahay waxa loo yaqaan big news waxay tahay bitcoin-ka waa lacag taasoo wax government-iya ama bangiga uusan maamulin uusan controlling taas marka waxay keenaysaa in account-kaaga laga block karin in lacagta aad diraysid aysan noqonaynin wax limit leh oo lacagta aad diri doontid account-ada hadda aan naqaano bangiyada waxay sameeyaan in lagu dhaho adoo lacag badan diraysid maanta in lagu dhaho waa gaartay maanta limitka loogu talagalay inaad dirtid lacagtii aad diri lahayd soo marka control lagu leeyahay sidoo kalena waxa loo yaqaano bitcoin waxa waaye internet of money oo macnaheedu waxaan ka wadnaa bitcoin-ka hadda tusaale ahaan awal waxaa jiri jirtay information-ka ama news qofka markuu rabo inuu ogaado wuxuu ka raadin jiray kaliya meelaha loogu talagalay tusaale ahaan shirkadaha waaweyn ee newska ka ganacsado oo soo saara jaraa'idiyada qofka meelahaas inuu suga ahayd ama uu telefishinada u raadsado laakiin maadaama hadda internet soo kordhay internetka marka informationka wuxuu u noqday wax aad u weyn u noqday isbedel weyn uu ku sameeyay wuxuu u noqday waliba decentralized uu ka dhigay oo informationka marka hore waxa laga heli jiray meelo gooniya internetka markuu imaaday informationkii wuxuu ka dhigay decentralized oo ah internetka meel wax kasta ka heli kartaa internetka macnaha information kasta raadin kartaa waa sababta hadda dadka aysan markaas aad ugu xirneen waxaan loo yaqaano jaraa'idda iyo
wararkii soo bixi jiray warqadaha laga akhrisan jiray iyo ma akhristaan dadka hadda because of internetka wixii oo dhan ka helayaan informationkii wuxuu noqday decentralized so marka internetka wax badan uu ka bedelay informationka saas daraadeed bitcoin-ka wuxuu noqday isagana booska internetka oo uu u taagnaa informationka ayaa bitcoin-ka asna wuxuu u istaagay booska lacagta uu istaagay oo lacagaha iyo qaab bixinteeda iyo isticmaalkeeda iyo economiga dhammaan wuxuu u noqday change weyn ku imaaday isbedel weyn oo ku imaado u noqday soo marka waxa dhigi karnaa bitcoin is the internet of money dhigi karnaa hadaba maxaa laga dheehay ama laga faa'iiday waxaan loo yaqaano bitcoin waxa laga faa'iiday wax loo yaqaano inuu yahay full control ama lacagtaada ina adiga control buuxda u leedahay oo lacagtaada adiga aad maxaa lahaa aan laga xaqireynin ama laga celineynin ama cid markaas kugu controleysa aysan jirin sidoo kalena maxaa la dhahaa cid idin dhaxaysa nominal maalna uusan jirin oo qof oo maxaa la dhahaa idin dhaxeeyo taas meesha waxay ka bixinayaan macnaha khidmadaha lacagahan hadda anaga waan naqaanaa markii lacagaha caadiga la diraayo fiat currencies-ka waxaan naqaanaa in dad badan ay markaas dhex joogtay u yihiin oo ay khidmado saartaan khidmado transaction kastaba khidmado badan aan naga go'aan saa ognahay no middleman hadday imaato marka macnaheedu waxay tahay no maxaa la dhahaa wax lacaga oo kale markaas dheeraada bixinaysid ma jirto sidoo kale lacagahan kale oo hadda aan isticmaalno digital uma ahan nature ahaan oo nature ahaan lacag caadi oo daabacan u ahayd oo meel ay ka imaato waa naqaani ma la programming karo oo wax lagu ma soo kordhin karo security-geeda hadii in la sii adkeeyo la rabo as programmable looma adkeyn karo laakiin lacagtan loo yaqaan bitcoin-ka waa lacag aan hore u soo marin macnaha inaysan digital noqoto ama lacag aan digital ahayn hore uma soo marin markay dhalinaysa ama ay sameysmaysaba as digital ay ku sameysmatay taas oo macnaheedu ay tahay waa la programming karaa waxba lagu soo kordhin karaa maxaa la dhahaa waa la mining gareyn karaa qayb qaatayaal badan ay yeelan kartaa macnaha taasaan ula jeednaa waa la programming karaa waa advanced waaye waa gadaala insha Allah ka arki doonaa sida loo programming karo iyo digital by nature sida ay ku tahay sidoo kale qodobka ugu muhiimsan waxay tahay iyadana waa open to all bitcoin-ka wuxuu u furan yahay oo maxaa la dhahaa uu u banaan yahay qof kasta qof allaale iyo qof maanta laga dawladaha kale hadda waxaa jira dawlado qaar oo dadka qaar oo wadanka jooga aan la ogoleen inay sameystaan akoona ay sameystaan taas macnaheedu waxay tahay lacagna kuma soo dhici karto lacagna ma diri karaan bitcoin-ka markii la joogo uu u furan yahay qof walba kaliya waxa u baahan tahay inaad haysatid meel oo lacagtaas lagugu soo diro oo walletis iyadana aan gadaal ka baran doono wallet address-kaas markaa leedahay lacag way ku soo gaari kartaa lacagna waa diri kartaa limitna ma lahan cid ku soo dabaraaci karto oo ku dhigi karto lacagtaas intee u dirta ama ku ogaan kartaba adiga shakhsi ahaan hebel ka tahay ma jirto faa'iidooyinka marka ay bitcoin-ka leeyihiin waaye bitcoin-ka marka yaa isticmaalo yaa macna maadaama hadda wax soo kordhay ay tahay dadkii ma la dhaceen way la dhaceen dadkii way la dhaceen waxa isticmaalayay maxaa la lahaa 2000 qiimaheedan aad u kordhay gadaalana ka arki doonaa laakiin dadka aad ay u soo dhaweeyeen waxay noqotay mid kamid ah waxyaabaha payment systemska waxa ku maanta ku gadan kartaa gaariga ku gadan kartaa saacada ku gadan kartaa cunto ku iibsan kartaa maxaa la lahaa biiliskaaga ku bixin kartaa electriga ku bixin kartaa waxyaabahaas dhan hadda ku sameyn kartaa bitcoin-ka shirkadahan dhan hadda halkan kaaga muuqdo oo Uber ay ugu koob tahay sidoo kale ay maxaa la lahaa ay kamid tahay Burger King iyo dhamaan shirkadahan cuntada iyo shirkadaha Google-ka iyo waxyaabahaas dhan Adidas dhamaan as payment system ay u ogolaadaan bitcoin-ka iyadoo ay jiraan xitaa shirkado kamid ah investigate oo maal gashtay maanta markii dunida waxay ka tahay bitcoin-ka wax aad weyn oo la hadal hayo oo qiimo badan leh ilaa heer ay gaartay inay hadda leedahay bitcoin wax loo yaqaan debit card oo maanta dunida dacaladiisa aad ku mari kartid adigoo meel kasta aad joogtid iyo xilli kasta aad joogtid debit card-kaas isticmaali karo wax ku iibsan karo wax iskaga iibin karo mar walba waxa rabtid ku isticmaali karo si kooban hadda marka waxa hadda aan soo baranay aan u soo gurmarno waxay tahay bitcoin intaas imaanin kor lacag jirtay lacagtaas jirtay waxay lacagta caadiga aan naqaano problema jiri lacagtaas maadaama oo goldiga ay standard u ahayd goldiga meesha ka baxay fiat money ay imaatay fiat money waxay la imaatay problemka ugu weyn ee hay'ad centralized ahayd sidoo kale non transparency ahayd oo cid markaasi arki karto siday wax u jiraan ma jirto problemyo waaweyn way lahayd soo marka digital money-gana imaaday iyadana problemka xalin waayana waxay ahayd inay ka maarmi weysay wax loo yaqaano dawladaha iyo bangiyada ay ka maarmi waayeen sidaas daraadeed maxaa la lahaa arintaas marka oo double spend problem la dhaho xalkeeda uu noqday in shay kasta laga dhigo
decentralized oo bitcoin waxay la imaatay in oo maxaa la dhahaa la sameeyo digital money taasoo xalinayso double spendiga bitcoin-ka iyo waxa waaye bankiskana waxay ku kala duwan yihiin transparent iyo decentralized waaye bitcoin-ka halka bankiska iyo dowladahana ay ka yihiin non transparent iyo centralized ay ka yihiin bitcoin-ka alternative wuxuu u noqday fiat money-ga oo lacagtan fiat money-ga hadda aan aqaano bedelkeedu noqon karaa iyadana inta kasoo guurtid bitcoin waa isticmaali kartaa cryptocurrencies-ka markii ugu horeysay ee soo baxday waxay ahayd bitcoin sidoo kalena advantageskeedana waa ka hadalnay yaa aqbalana waa ka hadalnay waxaa ka hadli doonaa maxaa la dhahaa sida maxaa la dhahaa loo isticmaalo bitcoin-ka iyo sida loo iibsado iyo halka lagu kaydsado iyo walletska sida loo furto iyo sidoo kale qodob iyadana muhiima hadda aan rabno inaan videogan aan ku xijino ama casharkan aan ku xijino casharka labaad noo noqon doono videoga labaad waxaa uga hadli doonaa blockchain oo ah maxaa la dhahaa teknolojiyadda suurtagelisay shaygan la yiraahdo decentralization inay dhacdo sidoo kalena suurtagelisay in bitcoin uu sameysmo ama cryptocurrencies-ka dhammaan ay insha Allah iyadana videoga ama casharka labaad aan kaga hadli doonaa haddii la yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.